waxaa xusid mudan in halkan uu joogo fanaan ku madadaalinaya isla markaana heesaha kala duwan ee qaraamiga ah ee dadka Turkida ay ku heesaan lagu madadaalinayo dadka rakaabka ah ee doonta saaran. hadda doonaysid maanta inaad halkan ka tagtid oo aad tagtid qaaradda Aasiya qaybteeda waxa jira ama doon baa la raacaa ama waxa jira halka nooga muuqda biriishkii weynaa magaalada isku xidhayay ama waxa jira tareen dhul badda hoostiisa mara ama wada caadi oo badda hoosteeda marto afkala waxa nooga muuqda qasrigii Dolma Bahja qasrigaas wuxuu ahaa qasrigii Sultan Cabdulxamiid Thani markii uu qasriga dhistay waa madaxtooyadii hore oo madaxtooyadii Cusmaaniyiinta marka qasrigaas aanu ku dhintay markii dambe wuxuu noqday meel uu degano Mustafa Ataturk isna waxa la yiraahdaa inuu qasrigan isna ku dhintay waa tahay daawadayaal waxaanu markan joognaa mid ka mid ah meelaha ay tagaan amaba ay badanaa ay joogaan dadka dalxiisayaasha ah ee yimaada magaaladan Istanbul sidaad arki karaysaan waxaanu taaganahay waa agagaarka xeebta Istanbul oo gacankan ayaad arkaysaan oo waxa maraya doonyo kuwa dalxiisa iyo kuwa ganacsi iyo kuwa maaragtay transportation amaba kuwa dadweynuhu ay raacaan maadaama magaaladan ay laba qaybood u qaybsan tahay Cabdiraxmaan soo dhawow goobtan aynu joogno horta magaceed se doontani maxay tahay maaragtay haatan dhaqaaqdayba waan dhawahay Khalid hadda waxaan joognaa Yemiin Nuuba la yiraahdaa waxa doontan waxa weeye waa transportation ko dadka European ka Asia ka geeysa waxa Istanbul sidoo kale waxay ku kala taalaa laba qaaradood inna waxay ku taalaa Asian side-ka ina European side-ka imika waxaan joognaa qaybta Europe hadda doonaysid maanta inaad halkan ka tagtid oo aad tagtid qaaradda Aasiya qaybteeda waxa jira ama doon baa la raacaa ama waxa jira halka nooga muuqda biriishkii weynaa magaalada isku xidhayay ama waxa jira tareen dhul badda hoostiisa mara ama wada caadi oo badda hoosteeda marto hadda gaadhi weyn ku maraysid halkan aynu joogno imika doomaha ka baxa waxa jira doomo dalxiiso kugu soo wareejinaya ilaa iyo magaaladu inkastoo ay leedahay saddex biriish ilaa biriishada saddexda biriishada dhulaha taariikhiga badda ku dhinacayaala ku soo marinaya hadda doonaysid inaad dhinacii kale Aasiya u gudubtid waxa jira doomihii kale iyaguna sida caadiga transportation-ka caadiga ah qaybta Aasiya ku gudbinaya waayahay marka doontani waxa weeye marka waxay u gudbaysaa qaaradii Aasiya u socota inagu halkan waxaan joognaa qaaradda Yurub ay ka dhigan tahay way laakiin wadankani kama tirsana European Union ka soo maaha kama tirsana ka system ahaan uga tirsana laakiin qaarad ahaan uga tirsan kubadda imka marka ciyaarayaan Turkigu European League ka ciyaara laakiin ka system ahaan iyo sidii kale aan uga tirsanayn waa hagaag dalxiisayaasha iyo waliba dadka u kala gooshaya labada qaaradood ayaa doonyaha raaca dabcan inaga qudhaynu goor dhowbaynu doonta raaci doonaa inagoo u gudbayna dhinaca iyo qaaradda Aasiya waana mid ka mid ah meelaha ugu caansan baynu oran karnaa dhinaca dalxiiska Soomaaliya aad iyo aad waa hagaag daawadayaal waxaanu mar dhow raaci doonaa doonta annaga oo tagi doona dhinacaas qaaradda Aasiya kana gudbayna maaragtay gacankan amaba xeebtan ama baddan sida idin muuqataba waana mid ka mid ah meelaha quruxda badan leh ee dabcan ay yimaadaan amaba ay ku dalxiisaan dadka dalxiisayaasha ah ee soo gaadha magaaladan Istanbul waa tahay daawadayaal halkan ayay dadkii rakaabka ahaa ee doonta raacayay ay ku sugayaan halkan baa laga gelayaa kadibna markay gaadho waqtiga ay doonta ku soo xidhanaysa halkan ayaa la raacayaa isla markaana ay dadku u gudbayaan dhinaca kale dabcan doontaynu raaci doonaa xagan ayaynu anaguna maaragtay ku sugi doonaa markay doonta timaadana waynu wada arki doonaa insha Allah dalxiiskaasi ayaad nagala qayb geli doontaan isla markaana aad arki doontaan idinka qudhiin daawadayaal marka doonta raacaysid amaba maaragtay gaadiidka kala duwan haday noqoto tareenka basaska inta badan wadankan Turkiga waxa jira kaarar gaar ah oo loogu talagalay ama kaarka tareenka kaarka baska oo loogu talagalay gaadiidka dadweynaha in lagu raaco laakiin maadaama anigu aan muddo kooban halkan joogayo isla markaana aan dalxiis ahaan joogo kaarkayga bangiga ayaan maaragtay u isticmaalaa inta badan inaan maaragtay ku bixiyo lacagta amaba maaragtay lacagtan hadba halkan u raacayo marka anigu dabcan si fudud waxaan u isticmaalay kaarkaygii bangiga aan kala yimid Somaliland
hagaag daawadayaal hadda waxaanu xagga ugu sarreysaa uga baxnay waa doontii oo aanu hadda saarannahay annagoo dabcan doontan cabdiraxmaan bal soo dhowow horta doontani mise dabaq bay ka koobantay doontan aynu soo dabaqii waxaan dabaqii saddexaad baynu hadda aynu saarannahay waay waxay qaadaa dad ilaa dhowr boqol oo qofay markiiba qaadaysaa waay way dhaqaaqday doontii way dhaqaaqday already waa hagaag waynu sii soconnaa xaggaynu u soconnaa Asian side-kii waynu soconnaa waa hagaag hada sad aragtid muddo ilaa imka 20 daqiiqo kadib qaaradda Asian joognaa waay de wasada waxay ka transportation caadiyana waay transport sidii baskoo kale waa dalxiis oona dalxiis waay kaarkii baskad ku raacaysaa wad saaraysaa tareenkii iyo baskii waxay kuma kala duwanaa waay waay cabdiraxmaan bal waxaad ka warantaa dad intee lag bay doontii qaadi karaysaa markaad eegto ilaa mise 100 bay kula tahay kama yaraan 300 qof markii ilaa 300 qof waa number aad u badan soo lama odhan boqolkiiba waa hagaag si maalinlaha bay halka uga shaqeysaa si maalinlaha dadka qaar baa dee ka soo shaqo taga Asian Europe soo shaqada dadka qaar baa halkan ka taga dhinaca shaqo taga tano isticmaalaan waa hagaag daawadayaal sidaad arki karaysaa baa doonta ayaanu xagga sare saarannahay doontan waxay ka kooban tahay laba dabaq maaragtay xagga hoose ah iyo kuwa mid xagga sare ah dabcan dad aad u fara badan oo dhowr boqol qof ah ayaana doonta saaran dadku waxay isugu jiraan kuwo u kala gudbaya labada dhinac dalxiisayaal bay isugu jiraan dadweyne aad u tiro badan ayaana goobtan ku sugan dhalinyaro Soomaaliya ayaad ku arkaysaa oo ardayda ama dalxiisayaal ah oo waddankan Turkiga ku sugan kuwaas oo iyagoo qudhooda halkan u yimid sidii ay u dalxiisi lahaayeen amaba ay ugu kala gudbi lahaayeen labada dhinac doonta daawadayaal sida arki karaysaan doontu dhinacan ayay hadatan u socotaa waa dhinacaan u soconno dabcan waxaanad arkaysaa in aan dhaqdhaqaaqeedu aad u xooganayn oo biyaha dusheeda ayay doontu sabaynaysaa laakiin xawaaro sare ayay haddana ku socotaa doontani dad fara badan ayaa dabcan dee doonta saaran gudaha ayaynu haddaba u geli doonaa maadaamaaynu dabaqa sare joogno gudahaynu geli doonaa halkaasaynu kafee ka cabbi doonaa ku sheekaysan doonaa isla markaana waxaa arki doontaan in ay doontani iska tahayba shidan dad iska sheekaysanaya shaahooda cabbaya iska dalxiisaya aan wax dhibaataa wax balaa qabin waana dalxiis iyo socdaal isku jira maadaama sida uu cabdiraxmaan noo sheegaba ay tahay wax iska caadiyo maalinlaa oo dadka labada dhinac u kala gooshaya ay raacaan sida baskoo kale ama sida tareenkoo kale ay u kala raacaan sida arkaysid intaynu doontan ku sii jirna aynu Asian side-ka u soconno waxaad arkaysaa maraakiibtii waaweynayd ee hoteelada iyo moolashii isugu dhex jirtay Europe ka timiye dadka package-kooda soo qaadanaya dhowr dalo adduunka sii mariyo arkaysaa ayoo ku jira badii maraya waxaad arkaysaa ayoo kale doomihii ganacsiga arkaysaa ama transit-ka ama meelaha kale ka yimiye marayay ama dalkan alaabihiisa qaadayay adduunka geynayay waxaad arkaysaa dhulal taariikhi oo kale waxaad arkaysaa imka halkaas kale waxay nooga muuqda qasrigii Dolma Bahja qasrigaas wuxuu ahaa qasrigii Sultan Cabdiraxmaan Thani berigii markii uu qasriga dhistay waa madaxtooyadii hore oo madaxtooyadii Cusmaaniyiinta marka qasrigaas aanu ku dhintay markii dambe wuxuu noqday meel uu degano Mustafa Ataturk isna waxa la yiraahdaa inuu qasrigan isna ku dhintay haddana waxa weeye waa meel dalxiis waana meel markay madaxda dibadda yimaadaan oo madaxweynaha dalkan iyo markuu Istanbul ku casuumo oo kula kulmo aragno waxa weeye waa biriishkii weynaaye magaalada kala qaybinayay waxa weeye markii berigii hore doonaha iyo biriishkaas baa la mari jiray may jirin yani wadooyin mara badda hoosteeda ama tareeno mara badda hoosteeda biriishkan sida arkaysid waxay yiraahdaan waa biriishka labada luga quraha ku taagan adduunka ugu dheer kastoo ay Turkidu taariikh badan oo ay sheegaan adduunka number 1 ka yihiin biriishkan waxa la dhisay 1973 meelahaas la dhisay waxaana imika uu iska jabtay lacagtii laakiin markaad maraysid ba gaadhigi maraya lacag baa laga qaadaa waxa jira tunnelkii badda hoosteeda maraya isna markiiba laga qaaday lacag markaad maraysid halkan waxa jirta jasiiradda inanta jasiirad yar oo la yiraahdo aynu arki doono dhinacan naga xigto marka waxa sameeyay salaadiintii isna soo martay dawladda Cusmaaniyiinta ayaa wuxuu ku riyooday inan buu lahaa inantiisaasaanu aad u jeclaa
markaa wax ku riyooday iyadoo dhimanaysa oo wax qaniinaya ama xayawaan cunay iyadoo dhimanaysa adoo ay ku riyooday markaa wax iskugu yeedhay dadkii la taliyayaashiisii wuxuu ku yidhi inantii waxaan ku riyooday inantaydii oo bahal cunayo dhimanaysa markaasan bahalka aan uga badbaadiyo waxaan u baahanahay dee meel aan geeyo adigu talooyin badan kadib midbaa wuxuu kula taliyay in badda dhexdeeda guri uga dhiso oo halkaa jasiiradda saasaa loogu bixiyay jasiiradda inanta gurigii wuu u dhisay halkanuu inantii soo dejiyey halkanaa cuntadeeda loogu keeni jiray wixii loogu keeni jiray inanta lagu ilaalin jiray maalimaha ka mid ahba ayaa beertii looga soo guuray qudaar badan inantii waa loo keenay amarka ilaahay waa say dee sheekooyinka ay sheegaane mas baa soo raacay qudaartii maskii inantii halkii buu uga soo baxay halkii buu inantii ku qaninay maskii halkii baana ku dhimatay yani taasuna waxay tusaysaa in qadarka ilaahay meel looga caranayo haddana bad taga ama berri taga qadarka ilaahay yani meel looga baxsada ma jiro waad aragtaa dee waa ka jasiiraddii dhinacaas inaga xigtaa waad arkaysaa magaalada dhismihii hadda waxaynu ka nimi taariikha dhismaheedii cusbaayo boorjiyadii magaaladana waad arkaysaa waa magaalada koobsatay waxyaabo badan oo hadday noqoto dee casrigii hore iyo casriga cusubba la jaan qaadaysa aad iyo aad mahadsan cabdiraxmaan وهاجاك دعوة ديال دونتنا نصارنا هاي الدلحيس كإياه ولي بجاد هان الله استعماله مجال إسطنبول ودك التركية وحياة عجيب كوا حكم إذا إن دونتو أي لا هاي مال كافيتيريا أو أما دكانة أو وحلقة وحلقة يبسدوا كافيه اللي قاعبوا إن عبد الرحمن دونتو كل اللي قدام هاون ميلر مارك جديد للرعاية سيرفيس كيو نمبر السعودة طويلة سنة waxaynu halkan laba dhowr mar kafee barbarta ka dalban doonaa kadibna waynu kafeegeena iska caadi doonaa insha Allah intaan doonta saaranahay inkastoo saacado kooban ama waqti kooban oo ka haray xilligii doonta aanu ka digayno wadayaal intaad saaran tahay doonidan iskaga kala gooshta qaybta Yurub iyo qaybta Aasiya ee magaalada Istanbul waxa xusid mudan in halkan uu joogo fanaan ku madadaalinaya isla markaana heesaha kala duwan ee qaraamiga ah ee dadka Turkida ay ku heesaan lagu madadaalinayo dadka rakaabka ah ee doonta saaran sidaad arki karaysaan halkan nin ayaa jooga oo tumanaya gitaarkii iyo qalabkii muusikada isagoo bartan heese leh ama kala duwan leh inoo saaraya oo kolba mid inooga luuqeynaya dadku xoog ayay uga helaan suugaanta noocan oo kala marka ay saaran yihiin rakaabka dadweynaha wadanka Turkigana waxaaba iska caadi ah in meel kasta aad joogto muusigu ka baxaya amaba dadku ay heeso ku qaadayaan وهاجاك دعوة ديال سعودال كيجي أنا كجن من قارة يوروب أيها وحكسوا جبجوبي قارة إيشيا مجال إسطنبول دونتي أتصارنيدن وذكركسين إن عبد الرحمن هل كان مكان يسوق يعني محل اللي رايده إيشيا كمان إيشيا سيركي يعني 15 minute 20 minute جدهن ها أيه نكسوق يعني قارة إيشيا نشوفنا حتى إنك سؤالي مجال دواس كسم وهل كان يشوفني هل كان أحبه كل الدوانا ومجال إسطنبول مجال دون ها marka waxaynu nahay dad ka yimid qaarad kale oo qaarad kale haday laakiin dabcan wax jaama lamayna kulmin saxmad ma jirin ma jirto badda markaad socoto waxa weeyaan waqtigaaga aynu soo mar lahayn wadada caadiga ama bridge ka soo wareegayna halkan imka saacad iyo something nugu qaadanay laakiin hadda 20 daqiiqo qura aynu ku nimid way aad baad maasata